بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان عاوة waxaan ku baran doonaa haddii aan warqadda gadaal u laabano creating subtotal oo macnaheedu tahay inaanu abuurno subtotal iyo grand total. Subtotalka waxaa laga wadaa tiro qorneyd tiradeeda guud baan hoos ku qoraynaa. Grand totalkan wuxuu noqonayaa subtotalada markii la isku daro dhammaantood tirada ka soo baxda ayaa waxaa la oranayaa subtotal. Haddaba maxaan ku khasbannahay si aan u sameyno grand totalka in aanu sameyno shaxdatan. Shaxdatan waxay ka kooban tahay waa shanta column. Column koowaad waa number, column labaad waa item, quantity, unit price iyo amount. Name-ka waa isla garanaynaa waa shayadii meesha aan ku gadaynay. Meheradeena alaabta ay gadaysay waxaa ka mid ah buugaagta ACT-ga, moodada ee 12 shaashadihii difaaca ahaa. Marka shay walba tiraa ka taal. Ereyga quantity waa tirada alaabta ka taala. Quantity marka hadda waxaan nidhi buugaagta waxaa ka taal 25, moodada 10, iskriinadana 100. Unit price waa calaa shay lacagta uu ku fadhiyo oo la siinayo unit price qiimaha. Kan waxaa la siinayaa $2. Kontonka kan muxuu ka yimi? Waa 2 tan oo lagu dhuftay quantity waa $50. moobelada 10 xabaa ka yaal xabadda waxaa la siinaya 150 lacagtooda waxay isku noqonaysaa markii la wada gado 1500. iskriinada xabaddii waxaa la siinayaa $1 waxaa ka yaala 100 xabo waxay isku noqonayaan tiradoodu $100. casharkeena maanta marka maxaan qaadanaynaa sida loo sameynayo subtotal. waxaan rabaa ACT-ga kan buga ACT-ga amountiga subtotalkiisa 50 buu oran doonaa oo subtotal markaa sameynayo ACT-ga subtotal buu ka sameyn, mobilka subtotal buu ka sameyn, screen-ka subtotal buu ka sameyn. Sidee u sameynaya? Step-ka kan ayaan raacayna. Step-ka marka waa halkan ugu qoran. Step-ka waa isaga halkaa inoo ku qoran. Okay. Step-ka aan marayno muxuu yiri? Step-ka muxuu yiri? Ugu horeyn sort the data you wanted to create subtotal. Soo kala horbasho buu ku yiri. xisaabta aad rabtid inaad subtotalka ku samaysid. Waxaan tegayaa data menu ka bacda waxaad dooran doonaa subtotal. aan sameyno process halkan ku baalkaysa. Ka bacda wuxuu yidhi under at each change select the field contain repeated data. fieldiga aad rabtid inaad xisaabta ku soo celiso dooro. Under subtotal select the field you want to subtotal. fieldiga aad rabtid subtotalkiisa inaad heshidna waa dooran kadhaa. Ka bacdi okay dheh. wuxuu ku yeer subtotalka waa inaad sax saadhaa subtotalkana saxda markaas subtotalka heli doonto. Haddaba sidee u sameynaynaa inoo soo fur qaybtan hoose amountiga hoostiisa hoose waxaa rabaa inaad subtotalada hoose kanaan dooranaya hoose. Ka bacdi maxaan tegin data tab la yiraahdo data wali falaadha ku haya. Ka bacdi maxaan dooran? waxaan dooranayaa tools group kan baa waxa ka dhex eegaya subtotal kuma jiro outline ka dhexe waa kan subtotal ay kaliya dheh. Halkan marka subtotalka gudihiisa subtotalka uu ka hadlayay halkan oo uu halkan inuu ku tusayay uu ku yiri subtotalka gudihiisa ayaa wax ka dooran doontaa filliga u baahan tahay. maxaa marka sameynayaa waa kan subtotalka waxaan dooranayaa functionka aan rabo inaan sameeyo saxda ayaa saarsanaya. kan saxda ka qaado uma baahnin amount u baahanay saxda. Ka bacdi maxaa oran? Okay. Wuxuu halkan ku sameeyay wuxuu yiri buugaagta ACT-ga totalka subtotalkoodu waa 50, mobilada subtotalkoodu waa subtotal 2 buu siiyay 1500, screen-ka subtotal 3 buu siiyay waa 100. haddaba halka ayay iska asbaan halka maxaa ku jira 1 2 3 1 hadday kaliya iraado wuxuu tusin doonaa grand total oo ah tirada guud isku darka tirada guud ee amountiga. haddaad 2 kaliya iraadana wuxuu tusinayaa subtotaladii shay walba totalkiisa hoose iyo isku darka totalada dhamaantood. haddaad 3 kaliya iraadana wuxuu tusin doonaa xogtiisa u qorneyd subtotaladii iyo grand total saddexdii. see looga furayaa marka rabaa inaan ka furo meesha aan ka soo xiray ayaan tegayaa data. ka bacdi maxaan dooran
outline groupka imow subtotal keliya kabacdi hadhow maxaa oranayaa remove oo markaa ka furayo kaasi waa subtotalka waxaa inoogu xiga casharka kan oo ah assignmentigaas adiga ayaa laga rabaa inaad ku sameysid excelka okay aan ka socon maxay inoogu xiga casharka kan aad u baahan yahay using lesson 7 oo aan kaga hadli doono using formulas isticmaalka qaacidooyinku are equations waa equationo that perform kuwaasoo looga shaqaysiinayo on a value in your sheet xisaab ku qoran qaacida sida maxaa loo isticmaalaa in xisaab looga shaqaysiiyo xisaab ku qorneyd in your sheets warqadaada waxaa lagu sii yiri a formula qaacidadu starts with qaacida markaan rabno inaan qorno oo aan xisaab ama isku darno ama kala jarno waxaan ka bilaabaynaa ereyga ah ama calaamadda at ama calaamadda equal marka sida standardka ah xisaab markaan rabno isku darno waa inaan equal marka hore qorno kabacdi xisaabta aan soo doorno calaamadii ku darta meesha keeno kii kaloo aan ku dara lahayn doono qaabkaas ayaynu parts of formula qaybaha kala duwan ama noocyada qaybaha qaacidooyinka factions baa lagu predefined waxaa horey loogu soo qaaxay qaacidooyinka kan that perform calculation in lagu sameeyo xisaabin by using iyadoo loo isticmaalayo specific oo dhan shaqo gooni in loo isticmaalo example tusaale oo kale waxaa sideedaba u isticmaalaynaa qaacidooyinka inaan xisaab isku darno plus waa ku dar minusna waa ka jar qaacidada ku dariya ka jirta halkan ayayna ugu xusay oo wuxuu yahay equal sum kabacdi waxaa la sheegay soo dooranaysaa selkii kabacdi waxaa keenaysaa calaamadii ku dar kabacdi waxaa ku daraysaa selkii kaloo aragtida ku darin kabacdi bracketka ku xir markaas kabacdi waxa oran enter ama wuxuu ku yahay haddii aad kala jaraysid equal qor sum qor open bracket from ama qoys fur soo dooro khaanada ay tiradu ku jidho kabacdi calaamadda ka jarta kayn ama kala ogeynta soo dooro xisaabta laga jarayo ama laga goynayo kabacdi qoyskii xir intan tan marka brace riix buu ku yahay alta plus equal tan marka raba inaan xisaab isku daro oo isku serious ah oo isdhinac taala ayaa waxaa isticmaali doonaa alta plus equal ku darta ayaa loo isticmaalaya haddaba intaanan casharka aan qaacidooyinka aanan gelin waxaa jira intatan aan fahanin exactly halka intatan waxa uu kugu qoray oo Soomaaliya kaaga dhigay in brika maalin aad ku wareerin qaacidada sum formula ereyga sum waa qaacido sum waxaa loo isticmaalaa qaacidadatan waxaa loo isticmaalaa dhammaan afarta xisaab falo oo kala ah sida tan afarta xisaab falo waa garanaysaano oo ku dar ka jar kala ogeyn isku dhufasho iyo isku qaybin isku darta waxaa la dhahaa English ahaan addition kala goynta English waxa lagu yaraa subtraction isku dhufasho waxaa la dhahaa English ahaan multiplication isku qaybintana waxaa la yiraahdaa division FG waa fiira gaar waa ka digtoono qaacido kasta oo la isticmaalayo waxaa laga hormariyaa calaamadda equal haddaan rabno inaan qaacido sameyno waa inaan calaamadda equal marka hore qoro kabacdi aan xuso calaamadda aan inaan sameeyo marka xisaab la isku darayo waxaa la sameeyaa sida tan xisaab aan inaan isku darno marka maxaa sameeynaa qaacidada noocadana isku darka qaacida waxaa qoraya equal kabacdi waxaan xusayaa ereygii saanka sheegay kabacdi waxaan furayaa qoys waxaan soo dooranayaa tirada labada dhicood waxaa la dhahaa range haddii aan khaanado badan oo isku xigay aan baalkeenayo laba dhicood ayaa xusin kabacdi waxaan sheegi doonaa selka u dambeeya koonaha u xiga kabacdi waxaan ku xiri doonaa qoyska kabacdi waxaa oran inta kala ogeyntana inti in la mida equal sum waxa meesha isbedeshay kaliya waxay tahay selka kan markaa soo doorateed tirada aad haysatid calaamadda minuska keen iyo tirada laga goyn lahaa haddaba iyadoo practical ah oo itus oo itaabsi ah aan isla eegin waxaa inoo diyaarsan casharkan liiska shaqaalaha
liiska shaqaalaha waxaan ku qaadan doonaa calaamadda ku dar. liiska kan waxaan nidhi tirooyin baa u sameynay oo aan ku garanayno qof walba lambarka uu yahay, magaca qofkii, lambarka uu wato, shaqada uu hayo, lacagta uu qaadanayay, gunada, lacagta gunada oo loogu diray. total total marka maxaa laga sameynayaa? waa lacagta mushaarkaayo saxdaayo uu qaadanayo oo lagu daray gunada. maxaa sameynaa marka? waxaa oranayaa khaaladii tan dooro equal, kabacdi maxaan qorayaa sum, bracket fur, bracketka markaad soo furaysid batanka shift baa qaban, kabacdi lambar 9 baa riixi oo kor ah. kabacdi mousekaa soo qabanaysaa, kan kliig dheh, calaamadda buluuga markay kuu kordho left kliigtaa qaban, adoo left kliigta haya kan kaa laqa. muxuu marka yidhi e2 labada dhibcood waxaa la dhahaa column ilaa f2, bracketkii markaa shifti, qoyska markaa xiraysid zerada ka xir adoo shift haya, kabacdi xurmeeya inta. maxaa halkaa helay? isku darka tan lacagta iyo gunada. intaan markay kuu soo baxdo halkaas balaaska waxaa rabaa kuwa kale inaa baalka balaaskaas tag, kiligta 2 jeer dhagdhagkaas, dhammaantood wuxuu kuu soo saari doonaa isku darku. haddii aan mar labaad ku celiyo, markaa rabtid qaacido inaa isku dadid, waa inaad hortay waxa isku dar xisaabaadka isku daraysa inay kuu diyaarsan yihiin. dee xisaabaadku haddaysan kuu diyaarsanayn aad isku dari lahayd, dee wax aad isku dadid meesha ma yaalaan. marka xisaabta tan 1,123 baa wax rabaa inaan ku daro $50. maxaan sameynayaa? equal sum, qoys fur, qoyska markaan furayo shift qabo lambar 9, kabacdi selection ku samee, left click kan dheh buluuga, left clickta qabo highlight ka wada saar, kabacdi bracketka ku xir inta. waxaa kuu soo haray inta ka hooseyso usoo saar, halkaas tag pluska marka kuu soo baxo left clickta 2 jeer click dhigo, double click, dhammaan xisaabaadkaasoo dhan buu isku dardarita. intaas waxaa ku eg xisaabta ku darta ka jarta. aan imaano shaxdatan oo aanu hadda shiidka deymaha oo ay gu qoran. shaxdatan baad diyaarsan, shaxtan markaad diyaarsatid waxaad tiri aniso jaamac khaliif gabadh la yidhahdo oo lambarkan wata ayaa lacag baqaarkay ka qaadatay, lacagta ka qaadatay waxay ahayd 240 adeeg. bishii markay dhamaatay bay lacag soo dirdhay, lacagtay soo dirdhay waxay ahayd 230. waxaa rabaa in lacagta ku hadhay aan ogaado, haddii ay lacag ku hadhay iyo haddaysan ku harinba inaan ogaadaan rabaa. marka see ku soo saaraya? waxaa oranayaa equal, calaamadda ka jar baa isticmaalna, sum, qoys for shifty 9, dooro lacagta aan lahayd 240. 10 calaamadda minuska, minus waxay ku xigtaa zerada waxay ku xigtaa dhanka midigta minus. kabacdi maxaan dooran? lacagta la bixiyey keli. kabacdi maxaan soo xirayaa? qoyska shifti qabo qoyskii xir. kabacdi maxaan oran doonaa inta. maxaa qofka ku haray $10. kan ku xiga sidii oo kale halkaas tag blasa marka kusoo baxo double click ku buux. kan markuu dhaco that means selka kan xisaabtii ma wada muujin karo, sidaas daraaddeed hash buu geliyay. xagga tag kala bixi si tiro loo kala bixin jiro waa garanaysa. qofka kale 690 baa ku lahayn, 343 buu diray, 347 way noogu dhigantay. ka jarta haddaan mar labaad ku celiyo, waxaa sameynaysaa shaxda noocadaana soo samayso. shaxatan markaa soo samaysatid lacag baa lahayd, lacagna waa lagu soo diray, qof baa lacag ku lahayd, qofkaas lacag buu baxshay, haraaga waa inaad soo heshay. qaacidada waxaan isticmaali doonaa sum, anagoo bedelayna calaamadda. waxaan oraynaa equal sum, bracket markaad soo furaya shift qabo lambar 9 la taabo, dooro lacagtii aan lahayd 240, dooro calaamadda minuska minus, dooro lacagta uu baxshay qofka, xir qoyska shifti qabo 0 ka xir. kabacdi maxaa oran inta. qofkaas waxaa inoogu haray $10. kan ku xiga markaan rabo inaan ku soo jeedo hadday badan yihiin haddii kaleba pluskaas tag kiligta 2 jeer kala, waxaa kuu soo bixi doona qofka kale lacagta ku hadsa. intaas waxaa ku eega casharkeena caawa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.